Fadlan ha ilaawin inaad subscribe saartid si aad u heshid muuqaaladeedii ugu dambeeyay. Sidoo kale ha ilaawin inaad kambalelka furatid si aad u noqotid qofka ugu horeeya oo hela muuqaaladeyda. Mahadsanid. Bismillah. Waa Maxamed Faarax Maxamed galad okay. Waxaa rabaa video yar oo ku saabsan sida stockholders equity loogu xisaabo Excelka ama milkiilayaasha shirkadda iyo waxyaabo la xiriira. Waxaan rabnaa inaan ku xisaabno Excelka. Haddii aan ku hormarno meeshaan waxaan rabnaa row koowaad waxaan rabaa ciwaan inaad ku qorto insha Allah. Kan ugu horeeya waxaa ku qornaa number, kan ku xigana ID number, kana name, kana waxaa ku qornaa investment. Okay, iyo kan waxaa ku qornaa investment, sidoo kale ratio, inta waxaa ku qornaa general profit, kana individual profit, sidoo kale kana waxaa igu qortaa dividend, remainings. Highlight iyo saar. Okay, home tag, then waxaa tagtaa font meesha qoran tahay waxaa ii furtaa buttonkaas yarka button border click see, then waxaa ii doortaa all borders. Okay, soo dhawee. Okay, meesha aan nambara soo gashto tusaale waxaan kasoo qaadnaa 11 milkiilina leenahay. Markii waxaa u tagaa numberskan ugu talagalnay hal waa u geli karnaa, hal marna waa isku xiri karnaa. Haddii aan si fudud isku xirno number 1 intaad tagtid right click qaado, labada highlight iyo saar, then meesha plus-kaas yarka soo jiid marka ilaa intay ku yihiin. hadday 20 ku yihiin 20 gaarsii, intay ku yihiin gee. Okay, ani 12 ayay kasoo qaatay. Intan waxaa u talagalay ID number inaan ku qoro. Hadda ka soco ID number mobile ahaan kasoo qaadbo. Marka magacaaga aan gashanayna Abdullahi Abdurrahman, sidoo kale Abdifataax, sidoo kale Abdinaasir, sidoo kale Abdinajiib, sidoo kale Abdirahiim, sidoo kale Cabdikaafi, sidoo kale Cabdirasaaq, sidoo kale Cabdilatiif, sidoo kale Cabdicasiis, kan u dambeeyna Cabdisalaan. Okay, magacaas waa samaystay. Okay, kan intan waxaa ku talagalay inaad ku qorto investments, yacni lacagta ugu horeeyo dadkaas soo maalgashteen. lacagta qof walba wuxuu soo maalgashtay marka ugu horeysa aad ku qoranaa. Okay, tirooyin aan kasoo qaadana ayagana.
gashtay tusaalaha kasoo qaadanay markeed waxaa iga qortaa total. meesha waxaa rabaa inaa totalka soo wada geliyo. okay qaacidaa jirto hal mar qaacidadan equal sum keli then kan uu kale kasoo bilaabo right kali qabo soo jeed inta. okay Cabdullaahi wuxuu lacagtiisa ugu horreeyay uu maalgashtay waxay ahayd 30,000. Cabdiraxmaan sidoo kale 50,000. total ahaanna ayagana kuwan kalena qorin total ahaanna waxaa waa 750,000. marka inta waxaa rabaa inaan ku qorno ratio yacni Cabdullaahi 750,000 ratio ahaan percentage ahaan meequu ka leeyahay ayadana qaaciday leedahay. qaacidaa kusoo saari doonaa insha allah. ratio wax kale uma helo individual investmentiga loo qeybshay total investmentiga kan ugu horeeya ka hormarno equal individual investmentka Cabdullaahi waxaa waaye 3,000 loo qeybshay totalkii 0.04. okay mid walba saan waan u samayn karnaa waa easy balse haddii tirada oo ka badato milkiilayaasha tusaale ahaan 100 haddii tahay yani waa adag tahay ama time waqti badan aan luminaynaa inaa mid walba hal u gelino kan u qeybi aan sameyno. marka habka fududaa jiro sida caadiga aan naqaanay haddii aan dhahno saan jawaab khaldan error dhacaa jawaab khaldan aa soo baxaya waa kaas hadda fiiri marka saas ma rabno waxaan rabnaa inaan meeshaan saxno. hal mar waxaa laba mar double click siiyey xarfaha meeshaan qoran equal waxaa gelinayn waa xarfiyaa gelinayn d4 inta laga wadaa d2 inta laga wadaa d14 waxaa laga wadaa totalki. marka si aan u saxno waxaa isticmaalaynaa calaamadda doolarka. d14 waxaa ka hormarsaa calaamadda doolarka sidoo kalena 14 waxaa ka hormarsaa calaamadda doolarka then enter idhah tirana hore noo soo laabatay marka hadda waa jidi karnaa tiro saxa noo soo galayso. okay sax tirada rabo taas waaye. marka waxa kaloo rabo waxay tahay ratio totalkiisa waxaa ka rabaa inuu la ekaado 1 marka iyadana soo gelino equal sum soo jiid waa inuu la ekaadaa 1 yes exactly 1 waa intaas waxaa waaye investmentiga iyo shaqsi ahaan qof walbo lacag intuu ka leeyahay. hadda tirooyinka haddaan fiirino qofka ugu lacagta badan oo noo maalgashto waxaa waaye 150,000 Cabdisalaam oo noogu badan 150,000 ratio ahaanna waa kana 0.2% ama 20% lacagtan asaga ugu badan. marka waa socono meeshaan waxaa rabaa ayagana waxyaabo kale inaan ku xisaabsado general asset iyo inta general asset keena waxaa horta 750,000 waaye isla tiradaas le waaye okay 750,000 general asset keena then waxaa rabnaa waxyaabo kale inaan xisaabino general profit diwar waxaa kasoo qaataa general profit keena sanadkan inuu hayo 95,000 less waxaa kasoo qaataa commission inaan bixino less commission haddii kala jarno new total soo baxaya then totalkaas waxaa ka jari doonaa insha allah second ugu dambeyn waxaa soo baxaya total. okay haddii aan gudagalno waxaa kasoo qaad aniga waxaa kasoo qaadnaa lacagtan oo 95,000 boqolkiiba 30 ka mid ah yacni commission ahaan u bixino waa iska jarayna marka qaacida u samaysayna equal general profit keena oo lagu dhuftay 30% 0.3 enter sidoo kale 28,500 waxay noqotay inta aan ka bixinay oo commission ahaan u bixinay. sidoo kale marka totalkan xisaabinayna ayadana yacni 9,000 hadda 28,500 laga jaro waxaa 66,500 marka qaacida ahaan usoo gashanayna equal 9,500 general profit keena less laga jaray 28,500 commissionka
waa inay noqotaa 66,500 yes sayno saxan sidoo kale waxaa ka jaraynaa saka aniga waxaan ahay dad muslimiin soomaalida haddaan ahay boqolkiiba boqol waxaan ahay dad islaam diinteena waxay qabtaa marka saka in la xisaabayo reed ay leedahay 1 divided by 4 divided by 10 oo ah 0.025 yani ayada sida commissionka camal laguma dhufanayo general profitka waxaa lagu dhufanaa general assetka 750 sakadeena waxaa marka la xisaabaya reedka waxaa loogu talagalay in lagu dhufto hantida haysano ma ahan wax faa'iidne marka sameyno equal general assetkeena lagu dhuftay 0.025 750 okay waa kasii jaraynaa equal totalkii hore laga jaray sake okay 47,750 waxay noqotay general profitkan nadiifka ugu dambeeyay marka waxaa ku qoranayaa meeshan aan ku qoranaynaa 47,750 profitkan ma ahan cali cabdullaahi bis inuu ka dhexeeyo total ayaga dhan waa wuu ka wada dhexeeyaa okay sidoo kale intan waxaa ku qoraynaa individual profit shakhsi ahaan profit ahaan calaa qof shakhsi ahaan meequu ka leeyahay ayadana qaaciday leedahay qaacida lagu helo wax kale looma helo ratioha lagu dhuftay general profit qaacidadeeda waa marka waxaa kala sameyn equal ratio click siiyey lagu dhuftay general profit meesha waxaa naga cad cabdullaahi profitkan wuxuu ka leeyahay 1910 okay ayaga dhan saasaa loo xisaabaa balse hadda marka easy waayo hoos u jeedinaa midaba automatic usoo galaa meeshan totalkana waxaa la rabaa inuu la ekaado total profit individual profit waa inuu la ekaadaa total general profit equal sum okay sababnaas waxaa tahay total 47,750 sidoo kale ayadana intan waxaa rabnaa inaan ku xisaabno remaining ayadana qaacidada dividend waa usoo laabanaya balse remaining hal marka hormaro remaining-kana waxaa waaye ayadana qaaciday leedahay qaacidada waxaa waaye individual profitka oo laga jaray dividendska yani dividends waxaa loogu talagalay lacagihii lala baxay individual profitka wixii la faa'iiday shakhsi ahaan qof walba wuxuu la baxay waxaas in lagu xisaabiyo lagu qoro remaining-kana waxaa loogu talagalay inaan ku xisaabino wixii soo haray marka remaining qaaciday leedahay individual profit laga jaray dividendka okay qaacidadaas gelinaa equal individual profit click less dividend enter okay mid walba saas waaye soo xisaabinayna hoos noogu jeed ilaa okay asna total u sameysanaynaa equal sum then isoo jeed inta afartan ilaa hadda wax ma lala bixin marka tusaalooyin soo qaadanaynaa nin walba wuxuu inuu wax la baxay kan ugu horeeya camal cabdullaahi waxaa kasoo qaaday kan ugu horeeya waxaa kasoo qaadinaa inuu lacagta dhan laga baxay lacagta dhan inuu wada baxay kasoo qaadinaa 1910 inuu la wada baxay automatic tirada meeshan waxaa rabnaa remaining-kiisa 0 noqonay sababtoo ah lacagta dhan waa la baxay okay waa kaas wax baabaha wax kuma jiro kan ku xigana waxaa kasoo qaadanaya inuusan waxba la bixin oo waxaa ka rabnaa asna lacagta sideeda inuu harto okay wax ma iska bedelan lacagta kan ku xigana waxaa kasoo qaadanaya 4,000 inuu la baxay meesha waxaa nooga cad in individual profitkiisa waxaa waaye 3,820 yacni waxaa ku cad meeshan lacagta u taalay profitka inay ka badan tahay lacagta la baxayo marka meeshan waxaan ka ogaanaynaa in 180 oo minus oo jirayso okay marka waxaa la rabaa meeshan automatic inay 180 oo minus ah ku muuqato waa kaasaa bracket la geliyay 180kii okay kan ku xigana aan sameynaa asna waxaa kasoo qaadanaa inuu la baxay 1,000 kan ku xigana 2,000 inuu la baxa kasoo qaadna kan ku xigana 4,138 inuu la baxa kasoo qaadna asna kan ku xigana 3,000 inuu la baxa kasoo qaadna
kanna inuu wax la bixin kasoo qaad, sidoo kale kan inuu wax la bixin kasoo qaad, kan ku xigana 5,000 in loo baxa kasoo qaad, kan ugu dambeeya inuusan wax la bixin. Okay, meesha waxaa nooga cad yani waa ogaanay isbedelka meesha ka muuqda waa loo jeedaa, waa fahmnay. Marka intaas waxay ahaayeen general profit keena, individualka profit iyo dividend iyo remaining-ka si loo xisaabo. Sidoo kale waxaa jiri kara waxyaabo kale, yani sidoo kale waxaa imaan kara new investment iyo new ratio imaanayo, ayagana si loo xisaabo waa arkaynaa. inta waxaa noqon kartaa new investment, kana waxaa noqon kartaa new ratio. Okay, new investment ayayna qaacidii leedahay, qaacidada wax kale maahan qaacida on bracket intii geli, qaacidada wax kale maahan previous investment equal kii hormare previous investment lagu daray equal previous investment lagu daray individual profit laga jaray dividend. يعني waxaan kasoo qaadanaynaa new investment qaacidada leedahay. qaacidada wax kale maahan, waxaa kala jaraynaa horta marka ugu horeyso previous investment-ga oo kow Abdullahi keensaday 30,000 waxaa ku daraynaa individual profit-ka oo 910, then waxaa ka jaraynaa lacagta la baxay. يعني hadda wax ma isbedelin, lacagtu faa'iiday iyo lacagtu la baxay oo isla egyihiin, lacagtiisa hore oo 30,000 oo soo laabanayso. mid walba saas loo xisaabaa, marka it's easy. Okay, ayadana waxaan u sameynaynaa total u xisaabin, total u sameynaynaa equal sum sidoo kale new ratio isla qaacidada sida waa wax ma isbedelin, equal individual profit individual investment oo loo qaybshay total. sida caadada ahayd inta sida hadda soo sheegnay, inta waxaa ka hormarinaa calaamada doolarka, sidoo kale inta waxaa ka hormarinaa calaamada doolarka enter. Okay, sida aan ognahay total waxaa ka rabaa inuu la ekaado 1. Okay, that's right, 1 waa la egtaa. meesha hadda waxaa ku ogaanay sida loo xisaabo. sidoo kale haddii wax nagu soo kordhaan new investment qofkii la imaado ratio si loo xisaabayo. video intaas ku egyahay. wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.